بسم الله الحمد لله وبه نستعين على أمور الدنيا والدين وصلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد dhammaan walaalaha iga dhageysanaya beejka waxaan u soo jeedinayaa lagjaro ama muxaadarooyin ku saabsan cilmi nafsi gaar ahaan caruurta waxaan rabaa inaan aan ku soo bandhigo halkan dhowr problem ama mushkilado oo caruurta la soo gudboonaada markay yar yihiin waxa waa important psychological problems in children أما أهم المشكلات النفسية عند الأطفال يعني مشكلتها ugu badan ama ugu muhiimsan oo ilmaha la soo dirista ama lagu arki karo marka ay yar yihiin marka mushkiladahaas ayaa soo bandhigaynaa markaan soo bandhigayna 3 step ayaan ka dhigaynaa marka ugu horeysa waxa waaye al-mushkilaat mushkiladii inaan soo bandhigno marka labaadna asbaabaha inaan soo dhigno marka saddexaadna العلاج أما سكر هذا ونقول حوالي مرك وهرز وحصان بين بربلمسكا يعني مارت second causes وحيابها يعني كيني كرا قدام بين solutions وحيابها حل كايتها مرك مشكلة كسبساس أيان أصلا بقادينا مشكلة ده صدقني يدين دول مرة وحاكمي ده الغيرة أما جيوليسي أيا كمي ده waxaa kaloo ka mid ama sayr ayaa la yiraahdaa waxaa kaloo mushkiladaas ka mid ah al-ghadab ama angari caro ayaa lagu arkaa ilmaha markay yar yihiin waxaa kaloo ka mid ah mushkiladaas mushkilad al-junuux waa afka carabi lagu yiraahdo afka ingiriisiga lagu yiraahdo delinquency lagu yiraahdo ayaa jira waa mushkilada afaraad waxay noqonaysaa al-khajal أما shyness problem يعني إنه يحيح في Soomaaliga lagu yiraahdaa ayaa kamida waxa kamida mushkilada الخوف fear problem cunuga mushkila ah inuu cabsoodo oo maxaan ku yiraahdaa yani ama ha ka cabsoodo ul ha ka cabsoodo waxyaabo kale ama yani wax Allah waxay tahay oo ka cabsoodo way la soo diristaa aydan problem bay u keenaysaa يحيى sidaas oo kale cunuga hadii uu maaragtay mushkilada yaxya la soo diristo yani inuu dadka la wadaago wax uu rabo iyo in maxaan ku iraahdaa wax uu barto problem bay ku keenaysaa caradan waa la mid ayadana hadii maaragtay cunuga uu carab badan yahay la dhaqanka dadka ama tacaamulka dadka iyo in isaga wax uu barto ama wax uu qabsado ama dadka uu la qabsado waxa waaye waxay ku noqonaysaa mushkilay ku noqonaysaa waxaa kaloo ka mid ah mushkiladahaas waxa la yiraahdo at-tashattut wa adam al-intibaah yani qofka inuusan isku aadanayn oo kala daadsan yahay iyo inuuna baraarug u lahayn yani inuu dhoohana u yahay ama maqana u yahay ayaa ayadana ma aragtay ayaa ka mid ah mushkiladahaas oo la soo waa desperation lack of attention la yiraahdaa يعني wuxuu noqonayaa qofka aan maqan qofka aan khataraha ku baraarugaynin qof maxaan ku iraahdaa dhoohan ayuu noqonayaa waa mushkilo la soo dirista ilmaha intay yihiin waxa ka mid ah mushkiladaha yani ilmaha la soo dirsa oo intay yihiin atabawul la iraadi yani inuu isku kaajo isagoon ogeyn marka waxa dhici karta isagoo markuu seexdo uu hurdayo inuu isku kaajo waxa kaloo dhici karta xataa isagoo soo jeeda mararka qaar inuu isku kaajo yani kaadaas soo mid isaga uu ku talagalay aan ahayn ama waxba uusan ka ogeyn ayaa ayadana waxay ka mid tahay mushkiladaha yani maaragtay ilmaha qabsaday ka mid tahay waxa kaloo ka mid ah mushkiladaha oo ilmaha ku dhaca oo la rabo inaynu ogaano si aan halkeeda u gaarno al-indiwaa mushkilatul indiwaa waxa weeye waa xirnaan cunug inuu xirxirmo introversion waxa waaye cunuga uu xirxirnaanaya oo saaxiibadiis lama soconayo maaragtay dhaqaaqiisu ma badno isaga isku mashquulayo marka problem nafsaani ah waaye oo cunugaas ku dhacayo ugu dambeyn
mushkilada aan halkan aan ku soo bandhigi rabo waxaa ka mid ah mushkilad al-ikti'aab waxa la yiraahdo ama depression waxa weeye niyad jab cunuga inuu iska niyad jabsanaado oo dhaqaaqiis uusan badnaanin oo saaxiibada uusan la ciyaarin ayaa ka marka intaas aan sheegay waa 9 problem oo ilmaha la soo dirsa inta yar yihiin way dhici kartaa kuwa kale oo fara badan inay jiraan laakiin intaan baan rabaa inaan mid aan u iftiimiyo mid waliba markaan ka hadlayo waxaan rabaa inaan ayadii aan qeexo maxay tahay mushkiladaas inaan qeexo qodobka labaadna asbaabaha keeni kara inaan sheego aan iraahdo mushkiladaas waxay ka dhalanaysaa ama keeni kara asbaabahaas ugu dambeynna yani in xalkeedii solution maxaa lagu xallin karaa inaan keeno marka intaas waxaan ugu dan leeyahay haddii innaga aan nahay waalidiinta ama aan nahay macallimiintii ama aan nahay yani murabbiyiintii marka oo ilmaha mar waliba la nool waxaan rabnaa inaan baranno mushkiladahaas markaynu aragno mid ka mid ihi cunuga aan ku aragno waxa waaye inaan xallin karno oon daaweyn karno si cunuga uusan uga harin mujtamaca uusan uga harin waxaan soo qaadanaya mid ugu horeyso jealousy ama alghiira masayrka ayaan soo qaadanayaa masayrka sidiisaba waxaa la yiraahdaa waa yani xaalad inficaaliya ama emotion state waa xaalad dareen oo cunuga ku dhalanayso ayaa la yiraahdaa taasoo isaga ku keeni karta marka inuu falcelin uu sameeyo dareenkaas dartiisa isagoo ka tarjumaya marka maseerka marka xaala inficaaliya ama emotion state wuxuu ka dhalanayaa marka xubu tamallug iyo shucuur ghadab marka emotionkaas ama dareenkaas oo cunuga ku dhalanayo wuxuu ka imaan karaa laba shay isbiirsaday yani waxaa la yiraahdaa xubu tamallug waxa waaye wax lahaansho jeclaan iyo shucuur ghadab iyo inuu dareemo caro marka مثلا waxa isaga uu rabay inuu yeesho ayuu waayaya ama qof kale in la siiyo ayuu arkaya ama qof kale inay wixii ay haysato arkaya wixii inuu helo rabaa wixii markii uu waayo marka uu caroonaya uu xanaaqaya marka labadaas oo isbiirsaday baa waxa ka dhalanayo maseerka uu ka dhalanaya falcelin buu sameynaa marka dareen oo falcelin ah ayuu sameynaya markaas waxa la yiraahdaa al-ghiira marka astaamaha lagu garan kara waxa kamid ah ama waxyaabaha yani markii maseerka uu dhaco waxa isbedelaya durbadiiba waxa waaye internal and external physiology ama الفيزيولوجيا الداخلية والخارجية وليه يعني xubnihi si dareenka oo gudaha ah iyo kuwa banaanka ayaa isbedelay marka isbedelkaas dhashay isbedelkaas xaaladda ka timid ama xaaladda ka dhalanayso ayaa waxa la yiraahdaa violence ama al-ghiira maseer baa la yiraahdaa marka inta badan wuxuu imaanayaa maseerkaas uu ka dhalanayaa yani markii isaga inuu hanto uu rabo uu waayo sida wax maadi haday yihiin wax la taaban kara haday yihiin iyo haday yihiin wax macnabi ah ama amaan la amaani jiray ayuu waayay qof kale la amaanay ama buund uu heli jiray hadii arday uu yahay ayaa ma aragtay ayuu waayay ama waa laga saramaray marka waxyaabahaas oo dhan ma aragtay waxa ka dhalanaya maseerka ka dhalanaya sidoo kale markii arday isaga saaxiibkii ah uu guuleysto isagana uu guuleysan waayo oo la kulmo yani fashil ama uu hungoobo maseerku imaanaya marka maseerkaas markuu dhasho intaas markay dhacdo oo la sugeeyay ayaa waxa imaanaya maseera imaanaya marka waa cudur ku dhaco ilmaha yar waxaana jira asbaabo keenaya ayaa jira waxaa jira yani qaab
maaragtay looga hortago oo loo daaweeyo ayaa jira marka waxaan jeclaan lahaa xalqadeennii koowaad oo ku saabsan أهم المشكلات النفسية عند الأطفال أما important psychological problems in children in ma aragtay meesha aan ku soo koobo aad iyo aad baad u mahadsantihiin waxaan idinka codsanayaa inaad la socotaan xalaqadaha dambe ogaalkii si uu isu dhammaystiro